waxaa laga maarmaan ah in la helo wacyigelin caafimaad. waxaa laga maarmaan ah in laga shaqeeyo barnaamijkii washka oo dadkaas biyo nadiif ay helaan, biyihii chlorination lagu sameeyo. maxay ahayd ida iska kaashanayaan barnaamijkaasi. wasaaradda biyahana qeyb ay ku leedahay water engineeringkii in biyihii loo soo saaro. horta mar koowaad wasaaradda biyaha iskale, biyahaas nadaafadooda in laga shaqeeyana oo biyo aan lagu jirinaynin inay cabaan dadkaasi, iyo sidii biyaha nadiifka maxay yihiin biyo nadiif ah, sidee biyo maaragtay nadiif looga dhigi karaa. wacyigelintaasna wasaaradda caafimaadka laga rabaa. marka haddii noqon lahayd in maaragtay meeshii hooyada uurka le lagu daryeeli lahaa, markii ay dhalaysana ay ku dhali lahayd loo daryeeli lahaa, loo diyaarin lahaa. mas-uuliyadda marka qeyb weyn aan ku leenahay annaga oo dadka barakacayaasha iyo guud ahaan soomaalida oo dhanba qeyb weyn aan ku leenahay. wasaaraddii waxbarashada qeyb ku leh, wasaaraddii diinta iyo waqaafta ayaa qeyb ku leh, wasaaraddii biyaha qeyb ku leh. marka waa multi sectoral, waa arrin oo qaran oo wasaarada badan taabanayso waay. marka insha allahu tacaala in marka koowaad la xaliyo wixii keenay in la barakaca, inta laga xalinayana dadkaas si lagu daryeeli lahaa, nolol fiican ay ku hadlayeen laga shaqeeyo sidii noloshoodii hore iyo gurigoodii meeshii ay ku noolaayeen ugu laaban lahaayeen laga shaqeeyo. waa mashruuc weyn waaye oo arrin qaran ah oo iskaashi badan u baahan. marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa xasilooni markay timaado ayaa horumarna yimaadaa. marka arrinta hadda maaragtay horumarka haba yaraado laakiin wuu jiraa, laakiin focuska hadda waxa ay saaran tahay waxaa weeye xasilinta iyo maaragtay nabad iyo ammaan in la helo. marka la xasilo oo ammaan la helo oo la dego horumarka uu imaanaya. marka insha allahu tacaala arrintaa marka ahamiyad ay leedahay darteed ayaa kulankan loo qabtay. focuska in arrintaa lagu soo jeediyo, wasaaradda way ku mahadsan tahay, guddiga barakacayaashana maaragtay waa ku mahadsan yihiin. annagana wasaaraddeena qeybta noo qaabilsan internal IDB-ga iyo refugee-ga sectionka noo qaabilsan waa xoojin doonaa hadduu ilaah yihahdo. aad baa umahadsantihiin.